xafiiska howlgalka qaramada midoobay ee taakuleynta Soomaaliya ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan UNSOM ayaa war ka soo saaray sharciga istiraatiijiyadda la dagaalanka musuqmaasuqa 2020-2023 oo dhawaan ay ansixiyeen golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya. qoraalkan ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ayaa lagu soo dhaweeyay tilaabada ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana lagu ansixiyay sharciga istiraatiijiyadda la dagaalanka musuqmaasuqa. sidoo kale qoraalkan oo aad u dheer ayaa waxaa lagu sheegay in tilaabada lagu ansixiyay sharciga ay ahayd mid loo baahnaa oo lagula dagaalamayo musuqmaasuqa laguna xoojinayo daacadnimada hay'adaha dowladda, khibradda adeega rayidka, hubinta maaraynta hufan ee maaliyadda dowladda iyo dhiirigelinta dhaqanka suuban ee dowladeed. dhinaca kale, wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Swan ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo go'aanka ay qaadatay dowladda federaalka Soomaaliya iyo sida ay uga go'an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa, awood u helidda marin cadaaladeed iyo in la dhiso kalsooni lagu qabi karo dowladda federaalka Soomaaliya. isagoo sii wata hadalkiisa ayuu James Swan carabka ku dhuftay in qaramada midoobay ay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka ka jiro ku dhiirigelinayso tillaabooyinka muhiimka ee horey loo qaaday, wuxuuna xusay inay taageerayaan horumarinta sharciga iyo jadwalka shaqo ee hay'adaha dowladda. hadalkan qaramada midoobay ka soo baxay ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay kulan ku yeesheen aaladda la isku arka ku meelmariyeen istiraatiijiyadda la dagaalanka musuqmaasuqa 2020-2023 iyo heshiisyada caalamiga ah ee la dagaalanka musuqmaasuqa.